dalkaani nin inta laalaabta jeebka gashta ee meel kala baxaahay boqolaal kumanaan Soomaaliya ku soo dhimatay ayagoo isla xukunka ama muxuu ahay xagaf siistaan nooma noqoto dhimasho kale mana ka talinayna mar kale ayadoo xukun loo cararayo in laga talo xukunku heer oo federaal uu leeyahay heer dawlad goboleed uu leeyahay dadka Soomaaliyeed ayuuna ka dhaxeeyaa oo Soomaalida ay ku yartay waa tanaasul malik oo markii xaaladdu ay qaraaraato ay xumaato dhihi kara intii wax halaabi lahaayeen anigaa sahlan ama haddii khilaaf imaan karo isagu tanaasula intii dalku dhibaato iyo ciriiri uu geli lahaa in afartii sanaba dalka ay doorasho ka dhacdo xor ah xalaal ah laysla ogol yahay laysla aqbalsan yahay loo wada siman yahay inay tahay astaan dawladnimo oo ummadda Soomaaliyeed ay ku talaabsatay khasabna ay tahay inaan xajino intaan dawladda ku jiray ayaan ummadda Soomaaliyeed u cadeeyay fikirkeyga ku aadanaa qaabka ay tahay dalkan doorashada in looga hirgeliyo waa qaab waafaqsan dastuurka laakiin waa muhiim in dadka Soomaaliyeed ay fahmaan haddii aan lagu heshiin nidaamka doorasho oo aan lagu wada qanacsanaan lagu heshiin maayo dawladnimada ka dhalatay dawladda waxaan leenahay waqtiga la siiyay waqtigeeda waa lagu ixtiraamay waqtiga hadda waa gabagabo ilaa haddana nidaam iyo hab doorasho lagu aadayo ma muuqdo taas waxay su'aal gelinaysaa oo xaggee loo socdaa dad badan waxay ku leeyihiin nimanku doorasho ma rabaan doorasho ma ka hadlaana maxaa ka hadlaysa laga runtii waa su'aal khatar bas doorasho rabaan rabaan la isku joogo ani ma aqaan saraax yaa ii sheega هاي دورة شمرة بتناشق ويا وحكى له أرتب الناشق. دولة حب بدن وأود لمرنا قف كسر صومالي حكولة دولة أود وحب بدن وحرمنا يقولين وقرن نمدي يهودي سوعلي دولة اسمها قانين ومد شرعي أو سريوان. ضدكم يوسمين شرعي. equality before the law إيه rule of law شرعي أنا واحد سريين وياه. لكن دولة قفك أو سري. صومالي إلهي وحكومة ابتلاعي السجع وحور ربع إنه يراد أنا الدولة أنا الدولة دي هقوليه أنا كسيدان ربو يعني دولة نمو فسرايا أنا كسيدان ربي دولة نمو نقول إذا